بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله الصوماليين ميلة جوجتان بإله سبحانه وتعالى دكوان ما يلو عندي دبردبك الله كقاضو عندي دل الله في انت باهن الله ديقو انت بكت الله بوكسي انت لمتى الله نحريستو والدينتين الله نحريستا أننا الله نوغدب نحريستو dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadi muddo xogaa waa ka maqnaa madasha hawlo ii gaara iyo safar Afrika ah iyo waxbaa isgalgalay mashquul last 5 days na hargab iyo waxbaa hayay marka alxamdulilah wax walba waa fiican yihiin isu soo noqod wacan maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob waa dagaaladii khaliijka ka socday xabad joojintoodii iyo marxaladii ugu dambeeyay kelmadaan ka oran doona qodobka labaad dawladdeennii Soomaaliya xasan sheekh maxamuud maamulkiisii oo 7 bari oo kaliya u hartay jimcada dambe na ay ku eg tahay ay tahay May 15 ayadana kelmadaan ka oranaya waxaan ognahay shalay oo 7 bisha ahayd waxa isdhaafsaday madaafiic Mareykanka iyo Iiraan Mareykanku wuxuu ku dhawaaqay inuu dagaalkii dib u bilaabay isla markiiba hadana uu isbedelay waxa keenay inuu meeshaas dagaal ka dhaco xabad joojintiina ay ku sigatay inay jabto iyo sababta keentay inuu isbedelo yiraahdo xabad joojintii baan wali ogolahay baan idin sheegaya midda koowaad waxa keenay wuxuu isku dayay xoog inuu ku maro oo maraakiibta joogta ku xaniban Hormuz uu isagu xoog meesha ku marsiiyo waxaa la dhacay markii warning la siiyay kadib madaafiic gantaalaha lagu dhuftay maraakiibtiisa lagu tuuray daroonaa lagu kiciyay boodooyo dheereeyana waa lagu sii daayay isagu wuxuu ku andacoonaya inta ay qoreen Mareykanku dooniyahani waa burburinay Iiraan waa diiday waxay tiri labo civilian ah bay burburiyeen oo dad shacab ay ku dileen iyagu waxay dhaheen 7 dooniyadoo dheereeyo ciidanku leeyahay ma burburinay qodobka labaad oo ah maxaa isbedelay oo uu dagaalka uga noqday waxaanu maqlaynaa laba arrimood midkay doontay noqon kartaa mid waxa weeye culays kaga yimi xagga khaliijka oo ay dhaheen hawadeeda ma isticmaali karto Sacuudiga iyo Kuwait gaar ahaan markiiba isbedelay waxa kale oo leeyahay ma ujeedada dagaalka oo dhan baa waxay ahayd ganacsi bay ahaydo short sale baa lagu sameeyay oil baa la gaday 700 milyan ku dhow lacag ku dhow ah baa la gaday lacagta iyada ah oo laga faa'iideeyay intaas oo milyan waa iska waday meesha Afrika oo korontadii baa naga tagtay marka ganacsi baaba loola jeedaa dagaalka iyo joojinta iyo dagaalka iyo joojinta waxa dhan waa short sale korontadaas oo sababta keentay marka in degdeg dagaalka loo joojiyo ee labaad waxa leeyahay waa oil business oo short sale baa waxa lagu sameeyay lacag 700 milyan ku dhow baa waxa la gaday daqiiqada ka hor markii dagaalka cilaamiyay markii la gaday oo lacagtaas ay gadantay oo suuqii waa koran hoos aadayna waa laga noqday oo waxa dhan waa ganacsi dad baa leh waxa isku soo duuduubo waxaad ogtiin Mareykanka iyo khaliijku inay aad u kala fogaadeen imaaraadka oo ahay dawladii Israa'iil ay iska lahayd ayaa wax ku dhawaaqday iclaamisay laga bilaabo May 1 inay ka baxday petrodollar OPEC baa hirgelisa OPEC inay ka baxday petrodollar marka maxay tahay petrodollar waa dawladaha gaaska gada oilka gada inay ku gadaan oilkooda dollar oo kaliya waxay ka faa'iidayaan dhaqaalahooda waxay dhiganayaan wadamada Mareykanka oo waxay lahaanayaan deynka 39 trillion ka Mareykanka dawladiisu qabto bay wax ku yeelanayaan oo government hedge funds bay gadanayaan waa wax la isku halayn karo waa wadan ammaan u ah oo amni gelinaya oilkooda inuu si free caalamka ku maro iyagana ay ku jirayaan ambareeladooda nuclear-ka oo ay ka difaacayaan cidii soo weerar arrimahaas marka waxay fashilmeen sanadii hadda ugu dambeeyay oo dhan
midda ugu weyn waxay ahayd Maraykanku wuxuu dhacay dalka Ruushka ayuu ka dhacay 3 trillions oo lacagta ka mid ah bangiyadooda ku jirtay ayuu xanibtay oo iska qaatay wadan walba waxa uu soo baxday amba waa noqon karaa berri kaas la dhacayo nimanka marka lama aamini karo la iskuma halayn karo waxa bilaabatay sheekada China yuan badlo China waxay u soo muujinaysaa corruption kama jiro waana wadan restricted ah ilaalinaya heshiisyada ay la galaan caalamka ilaaliya macruufka oo lagu yaqaan 30 sano hadda la soo dhaaf 50 sano haystaan xisbigan hadda haystaan lagu yaqaan inay kelmadooda ilaaliyaan oo aanay cidna wax ka boobin waxna ka dhicin cidii maagtana iska dhacshaan cidii la saaxiibtana ay la saaxiibaan xagaas loo batay imaaraadku waxay ku dhawaaqday inay aslanba ka baxday OPEC marka waxay ku burburi doontaa muddooyinkan soo socda oo dhow bay ku burburi doontaa midii ugu weyneed isaga afduubtay oo Venezuela qaatay imaaraad waa ka baxay Sacuudigu heshiisyada ugu badnaa wuxuu la galay yuan buu kula galay China inuu kaga iibsado Ruushku sidoo kale yuan buu kula galay caalamka kaga iibiya oilkiisa si official ah bay Iran u taageeraan Shiinayska iyo Ruush sababta maxay tahay waxa la galay dagaal dhaqaale yaa si adkaysan kara bay maraysaa Maraykanka waxa ku kacay dadkiisii buuq baa gudaha kaga kacay politically waa destroyed Donald Trump dadkiisii baa qayliyo meel walba taagan dadkii dhaqaalahoodii ma sii socon karo waxay bilaabeen inay yiraahdaan hadda waxaan sameynaynaa dollar swap waxa weeye annagu dollar ma haysana yiraahdeen imaaraadku intay Maraykan yimaadeen haddii aan weyno dollar lagu filan dee waa joojinaynaa petro dollarka waxaan ku gadanaynaa waxyaga yuan xaggaasaan aadayna Sacuudigu wuxuu kaloo joojiyey maalgelin uu ka waday dalka Maraykanka waa dhaweeyda uu Trump tagay oo soo maray khaliijka oo lagu tartamayay anigu 1.5 trillion baan gelinayaa anigu 1.6 baan gelinayaa anaa ka fiican lacagtii iyada ahayd wixii xarooday mooye wixii kale waa la joojiyey maxaa yeelay khaliijkii iyagiiba ay waxay ku tahay jib arrintaasi marka Maraykanka siyaasaddiisii arrimaha dibadda dhaawac aan aysan ka soo kaban karin ayaa gaaray wadarkiisan treasury wasiirka treasury ministerka Scott Bessent oo leh swap baan u sameeyaa senatarada hortooda kale waxaan siinayaa dollar baan siinayaa lacag dollar baan imaaraad siinayaa oo badan oo billions baan siinayaa si loo badbaadiyo oo aysan u gadin deynka haday deynka gadaan interestiga ku kacaya Maraykanka dhulkeena galaya dhaqaalahooduna waa burburaya dhaqaalahoodu wuxuu ku dhisay babal iyo dollar xaashiya oo wax goldiya oo ilaalinaya uusan jirin oo la print gareynay inta laga siiyo laleeyahay inta loo qaybiyo wadamada OPEC loo qaybiyo oilka ku gata dollar ku gata wadamadaas kalena ay soo doonanayaan oo dollar ay iibsanayaan mawjada dollarka marka waa dhacaya waana burburaya haddii dagaalku saa ku sii socdana Iran baa guuleysanaysa Iran hoosta laga siinaya dhaqaaleeda oilka waa laga gadanaya hub waa la siinaya cunto waa la siinaya 50 sano awalba ku jirtay cunaqabatayn ma kala jecla marka cidda burburaysa oo tan ku burburaysa oo babal ku dhisan waa Maraykan waana arki doonaa meesha ay ku dambayso kelmadda ay tasakoornay qodob kale Xasan Sheikh Maxamuud usbuuc baa haray usbuuc kadib waa madaxweynihii hore waa oday Soomaaliyeed cid uu awood ku leeyahay lama arko waxa uu noqday sidii weer masuuba ah nin uu rooraya oo wax boobaya shalay waxay soo qortay gobolka Banaadir inay joojiyeen dhul boobkii xalay xabad baa isla dhacay oo dad shalay hadaad qortay inay dhul boobkii joojiseen xalay maxaa ula diriirsan waxa kale oo soo baxday inay iska dhicinayaan qabaa'ilkii una arkaan nin qabiil kaliya wata ee aan dawlad ahayn in magac dawladeed wata uma arkaan waxay arkaan nin tuug ah oo reerkiisii ciidan ah wata oo weerar ku ah ummadda kale oo raba inuu boobo wuxuu noqday weer masuuba ma dhargi يعني waxa la wixii dhulkoos korkiisa yaalay waa qaatay qabuuraha waa u daatay dawladda hantideedii oo dhan waa iibsaday dadkii shacabka guryahoodii u bilaabay waad aragteen xaafadda ruushka waa guryaha xaafadda banaanka la dhigi jiray annaga iyo iskuul taleex noo dhaxaysa oo dad shacab ay lahaayeen oo weligeed la deganaa dawladda Soomaaliya joogtay la deganaa
باقولي علامات لو قلت لي صباح كان صبر اللوجدين قفك صبر اللوجد ودي بقى دي الربع أنت لك صورته بالبدلانية هدي الربع وابا لك قادنية موجودة قولي بقى الربع إنك وحلقوا قريس كطلاب عقف بالمرينية أنا بقول النقطي إنسان وحنا حريص عنهين أنا بقول حنا يا غير مقدشة حمود يدد عدك أو وحسكان عنكرة أرورتي يو جودريال بيدور كقوة وطن every day نكا مركي أركان إنه سن دولة الشقينين وتوج يهاي خراب تقع سو شقة تجي الناس كان عشانه حتى نروح كلها تلنية تدبر بريبا وهرتي legitimacies تدبر بري مركي دماغته واتقاني والموجوري يا جماعة شكوية ليه دي بقول لها أدوك ما دا نور كسب حي مساء كعادك عندنا عيد كماتك هدي دولة نمو يو الشرع اللي إلى لواي لأننا نكماتك دول كاي يكون نقو نكي توقع هاي وكي بيسو هاي ثلاث سدين حبا كامقل دول كان أنا على منك كعيو كوح إذن كل لعبت دول كيني حتى انتي ويرك كويا هنا ساي سجاد عيني سانسد دين إلى ورلاليس كيو سجاد عشاء نكاني واشقتك وإيمان لاوي waxaan kaloo rabaa inaan ummadda u sheego waa markii ugu horeysay intii laga baxay ku meel gaarka ee dawladda Soomaaliya Kampala Accord oo kale ay aqbashay waxaa soo foort saaray walwal aad u tiro badan iyo baqdin aad u tiro badan waxaa la saaray culays tiro badan waxaa lagu yiri waa in absolutely aad heshiis qaadataa toddoba bari baa wartay heshiis siyaasadeed baad ku joogi kartaa xoog kuma joogi kartid markaasuu ogolaaday oo soo tuuray warqadda aragteen uu yiri 10 bisha ayaan la kulmayaa mustaqbal waxay condition ka dhigeen qola saddexaad oo dhexdhexaad waa inay dhex joogtaa ujeedadeeda waa la garanayaa cid ay tahay waa international community waxa uu kor u sheegayaa Xasan inuu san aqbalayn hoosna waxaanu ku ogaanay inuu aqbalay laakiin uu codsaday inaan sawir la qaadin oo ay noqoto albaaba xiran wax miidiya aan la keenin وأوغان دونا ماشي كودن بيسو لكن ومركي ugu horeysay ee fadeexadaas dawladda Soomaaliya ay ku dhacdo oo dib loogu celiyo sidii ku meel gaarkii international community inuu dhex fadhiyo hawlaha iyo danaha iyo umuraha Soomaaliya taasna waxay ku tusaysaa ninkaani dawladnimo inuu saxba ka aqoon mid dibadeed iyo mid arrimo gudeed midna inuu saxba ka aqoon inuu yaqaan waa dhici kartaa laakiin uu sadamba kala hayno una socon wuxuu socday حاب قادنيو iyo xoolo urursi ma qaan meel ku cuni doono waxa uu harayo nolol ah ma garanayo xilliyadii la jiran jireeyo dadku intay wada jiradaan isbitaalada iyo daawada la qaadan jiray buu ku jiraa xilli lacag la ururiyo kuma jiro laakiin wuxuu ku mabay oo ku mamman yahay ummadda Soomaaliyeed hantidooda waxaan la yaabay wuxuu soo saaray warqad maanta uu leeyahay 10 guri baan dhisayaa oo 10 guri aad dumiyay how duminaysa hada dhisi karti maadaase wax dhisi kara ma hadda ay isleedahay dadkii aad isku dirtay oo ku nacay oo magacaaga haday maqlaan subxaanallaah ilaa baad waxa isleedahay been u sheekale been low inaad tahay waa ku ogyihiin aadan beenta ka gaban masaajidka ka dhex sheegtaa beenta inaadan la gaban waa ku ogyihiin ummaduna way ku taqaan mana aqbalayso waxaasna wax dad loo yimaado maaha marka waxaan leeyahay todobada bariyo ku hartay ilaahay ummadda ka nabadgeliyo oo reer dambeeyay qixin oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacmahaaga ha ka qabto ummadda inta todobada oo ku hartay todobada bari markay ku dhamaatana dhul kasto aad dhacday ku talagal waa lagaaga daba imaanaya lacagtii aad boobtayna ku talagal inaad nabad ku cunayn oo Soomaaliya ay kaaga harayn oo meel walba dacwo laga dhigayo cirka aad dhulka kuma noolaan kartid cirka u duuliyo meelaan la aqoon adiga iyo awlaadaaduba dacwo ka bixi maysaan for the rest of your lives inta taariikhda ka hartay noloshiina Soomaalidana waxaan ugu baaqayaa inay isu abaabulaan inay kireystaan shirkadaha ma garanaysaa looyarada caalamka ugu caansan inay kireystaan fundraising caamana loo sameeyo oo la isugu daro lacagtay qaateen maxkamadaha ka qaateen dawladda soo socotana waxaan kula talinayaa inay arinta ka saacido ummadda sheeganaysa inay dhiceen
xasan sheekh maxamuud iyo tuugta ku hareeraysan oo ku midoobay boobka hantida ummadda Soomaaliyeed inahaasaan oranaya billahi tawfiiq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.